Een, imika wasiirka arrimaha dibadda ee markaasi Israel, Mr. Sanch ayaa markaasi ka soo tegey. Waxaa la dareemaya markaad wasiir ahayd halkaas fadhiyid, maanta wasiirada kula midka maxay dareemayaan? madaxweynaha iyo golaha xukuumadda horta waa hambalyo. dee horta farxad baan dilaaci lahaa anigoo cabinetka ka mid ah hadday arrintaas iman lahayd horta waxay noqon lahayd historic. laakiin waa la midoo tacabkan soo gelinay baa midhaheeda lala guranaya oo waa ku hambalyaynaa. dareenku runtii waa sahlan maaha. sidaa uu sheegay cabdi safiirkuna waxa weeyaan somaliland waxaynu odhan karnaa waa aqal soomaali la soo gelinayey 7 madaxweyne iyo 5 xusbi ayaa nasiib u yeeshay inaynu soo taagno oo saynu sheegnay madaxweyne ugu horreeyey cabdiraxmaan allahu naxariiste. dee aasaaskii buulka ayaa la dhigo markii laga soo qaaday koonfuriga kala soo noqonay waa la taagay. markii halkaa la taagayna udub baa oo allahu naxariiste riyaale oo udubadii u taagay dhidibadii. dabeetana waxaa ka dambeeyey axmed shireen allahu naxariiste iyo muuse bixiyo kulmiye oo iyaguna aqalkii ministarkii ay taageen. marka shacabkii aqalkii waa dhismay laakiin waxay ma jirtaan dadkoodina la garan maayo haddii meel u baxaan hawadaa laga xidhi jiisaa laga xidhi. dabeetana ilaahay wuxuu soo dirayaa oo markaasi aqoonsigiisa jirisa waxaa mucjiso noqotay lama filanay. waxa weeyaan caalam islaam oo dhan baa jiray turkiga oo dee dowladda ugu